sida macluumaadku ay ku soo gaarayaan telefishinka Home Cable isla markaasina uu noo xaqiijiyay wariyaha telefishinka Home Cable degmada Ceelaf Weyn ugu yaraantii 5 ruux ayaa waxay ku geeriyoodeen dagaaladaas u dhaxeeya labada beelood ee wada deegaanka Darar Weyne ee degmadaasi Ceelaf Weyn ka tirsan waxaana dagaalkaasi labada beelood u dhaxmaray uu bilaabmay maanta isagoo soo gaaray goor dambe oo gabaldhiciya dadka dhintay ayaa waxa kamid ahaa caruur iyo xubno ka tirsan ciidamada militariga ee Soomaaliland oo doonayay inay kala dhaxgalaan labada beelood ee shaqaaqadu ay dhaxmartay beelahani haatan dagaalamay ayaa dhowr jeer oo hore dagaal ay ku dhaxmareen halkaasi hayeeshe xukuumadda Soomaaliland oo gurmad ka samaysay arintaasi ayaa waxa heshiisyo nabadeed ay ka dhax abuurtay labada beelood iyadoo lagu heshiiyay in colaadda la joojiyo ase yeeshee lama oga waxa ay dib ugu bilaabantay colaaddu maanta ilaa iyo haddana si toos ah looma oga khasaaraha dhabta ah ee kala gaaray labada dhinac inta uu leeyahay mana jiro wax hadal oo ka soo baxay mas'uuliyiinta gobolka iyo xukuumadda Soomaaliland wararka amuurtaasi ka soo kordhana waxaad kula socon doontaan wararka dambe ee telefishinka Home Cable.